Soomaaliyeed ee ka howlgeli jiray aagga degmada Xawaadley oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gabi ahaanba soo baneeyay furmihii ay difaaca kaga jireen ee ay kula dagaalamayeen kooxaha khawaarijta kadib dhacdadii argagaxa lahayd ee shalay ka dhacday aagga degmada Ceelbaraf qayb ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo fasax ku socday oo maleeshiyaad hubaysan ay dhaxda u galeen isla markaana si arxan darro ah ay halkaasi dhammaantood ugu laayeen oo weliba ay muuqaal ka duubeen. waxaan muuqaalkeena hore idinkula wadaagay 7 askari oo ka soo jeeda beesha Xawaadle ee gobolka Hiiraan degta inay la laayay oo ay laayeen weliba maleeshiyaad abgaal ah. 7 askari maleeshiyaad ma ahayn askar ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka tirsan bay ahaayeen. fasax bay waxa weeye soo qaateen deegaanadooda iyo dadkoodii bay u socdeen macal gaarigii ay ku tagi lahaayeen baa la siiyey si nidaama ayay ku socdeen iyagoo weliba kaararkoodii astaantoodii wixii oo dhan loo jeedo ayaa intii lagala degay baa haddana la soo duubay iyadoo la laynayo oo intii gadaal loo xidhay sujuudda laga tooganayo. muuqaalkaas run ahaantii inaad aragtay waa laga yaabaa waa muuqaal argagax badan dhacdo aad iyo aad u foolxun. 7 askari oo isku hayb ah isku beel ah maleeshiyaad aan argagixisadii ahayn oo maleeshiyaad beeleed ah dagaal aysan shuqul ku lahayn loo laayay ilaa iyo hadda dowladda federaalku war lagu qanci karo kama aysan soo saarin. waan dul istaagi doonaa ciidankaasi gadooday tiradooda halkay ka howlgelayeen iyo sidoo kaleeto beelaha ay ka soo jeedaan iyo saamaynta durba ay ku yeelatay ciidanka Soomaaliyeed dhacdadaasi argagaxa badan hawsha adag ee u taala Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleeto ragga ku haybta ee beesha abgaal ka soo jeeda ee dhacdada argagaxa la sameeyay ayaa muuqaalkan ku qaada dhigi doona haddii Alla soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidina nagu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay boqolaal ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ka howlgeli jiray degmada Xawaadley ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gabi ahaanba maanta soo baneeyay furmihii iyo goobihii ay difaaca kaga jireen ee kooxaha khawaarijta ay kula dagaalami jireen kadib markii ay dhalinyaradaasi ka war heleen dhacdadii argagaxa lahayd ee saaxiibadood walaaladood waxa weeye lagu laayay degmada Ceelbaraf duleedka degmada Ceelbaraf aadane. askartan waxay ka mid ahaayeen askartii aagaas ka howlgelayay ka dagaalamayay 7 askari ee la dilay aadane waxay ka mid ahaayeen askartan gadooday halkaas bay ka howlgeli jireen 7 askari bay ahaayeen oo weliba nin sargaal u wato waxa ay wateen warqad fasaxa deegaankooda gobolka Hiiraan ay u socdeen caruurtooda iyo waalidiintooda ay u socdeen gabi ahaanba maleeshiyaad beeleed waayii ugu dambeeyay halkaas dagaal ku dhex marayay maleeshiyaad kale oo beesha Xawaadla ayaa la soo degay hal baa loo toogtay intii weliba la iskare firfirsiyaad baa muuqaal laga duubtay oo la leeyahay weliba Xawaadla waka ciidankeeni waa ciidan xoogga Soomaaliyeed ma aha maleeshiyaad bal ka waran ayaa darada inta leeg ciidanku marka way gadoodeen waxaa leeyahay meesha anaga dawlad ma aragno dawladnimo kama jirto askartay anaga askar tahay ba hadina la laynayo annagana aan iyagii difaacayno fiiri Shabeellada Dhexe degan ma Xawaadla degan Xawaadla ma degan ciidankii Xawaadle wiilasha Xawaadle halkaa bay ku dhibanayeen oo waxay ku dhibanayaan galguduud oo waxay ku dhibanayaan mudug oo waxay ku dhibanayaan halkaa iyo waxa way Shabeellada Dhexe ku dhibanayaan oo gobolka Banaadir bay ku dhibanayaan ma ayaga degan ma degan ciidan qaran weeye laakiin kuma khaldanaan inay ku dhintaan waa ciidan qaran. ciidankii qaran ee noocaas ahaa ayaa waxa weeye sidaad aragtay marka dhacdadaad aragtay lagu sameeyay 7 sargaal ayaa leey Xawaadle guba baa leey guba maskaxda laga wada tugtay 7doodiba hal meel baa lagu diray bal adigu musiibada dhacday fiiri balade ayaan darada eeg ciidankii marka waxa la yiri waxaan ciidan ku nahay ma jireen dhamaanay inaga bixiya baa leey ilaa dhowr boqol oo askari oo beesha Xawaadle ah oo dhowr saldhig oo aagaasi ku yaala ka howlgelay oo gobolka Shabeellada Dhexe joogay yaa iska soo dareeraysaak waxa la yiri maya nama qabataa leey anagu waan tagayna gobolkaanada Hiiraan baan aadayna degmada annaga balad weynaan dhex tagayna dadka annagaan u tagayna ciidan qaran anagu ma aragna baa la yiri marba haday sidan hawshi tahay waxaan anagu Xawaadle iyo waxa weeye anagu aan dhulkiisa si difaacan u joogno oo difaac kaga jirno ma aragna baa la yiri way gadoodeen
dowladdu mas-uuliin bay u dirtay ilaa iyo haddana wadahadal baa socda in halkii lagu celiyo oo fariisimahoodii lagu celiyo ayaa socota. dhalinyaraduna maya bay taagan yihiin oo waxaa la yidhi maya annagu haddaan nahay ciidankii beelaha xawaadle ka soo jeeday dhalinyarada askarta ku jirta meel walba oon soomaaliya ka joogna waa ka soo baxaynaa baa la yidhi annaga beled weynaa iskugu tegaynaa halkaa baan iskugu tegaynaa suurtagal ma aha baa la yidhi in annagana ciidan qaran noqono dhexdana naloo galo oo nalagu laayo qabiilhaan naloo laayo qabiilkaan difaacaynay een u dhimanay een u dhaawacanay inuu na laayo waana run. dowladdu gobolkii hiiraan markii laga dagaalamayey argagixisada laga saarayey reer hiiraan iyagaa iska saaray dowladdu gacan kama geysan. laakiin gobolka shabeellada dhexe argagixisada markii laga saarayey wixii ugu badnaayee ku dhimanayay reer hiiraan bay ahaayeen soomaalida kaley ahaayeen abgaalku waa ku yara iyadoo taa jirto ragga taa garan waaye ee maanta intay waxa weeye gawaarida kala degeen wiilasha laayey ee xabadda la dhacay carruurtooda ma loo ilaalinaya ma la sii joogaya maya may suurtagal maaha. dhalinyaradu inay reerahooda iska kala aadaan wey haddayba sidaa ay dhacday dhalinyaradu inay reerahooda iska aadaan weeye. dhacdadan run ahaantii waa dhacdo argagax badan markaasayna leehay inaan qarankeenna dumino oo ciidankeenna aan qabaa'il ka dhigno oo aan waxa weeye kala furfurno aniga ma jecli. ciidanka qaranku waa ciidan qaran meel walba uu joogaba qabiil ma aha laakiin de dhacdada say u dhacday baa qabiil ah. dhacdadii say u dhacday ayaa qabiil ah. murugay nagu yeelatay waan ka murugoonay waan ka xumaanay waa arrin run ahaantii aad iyo aad u foolxun weeye markii laga qiimeeyo. haddanana qabiilka laynaya ku darsadee waa madaxweynihii jamhuuriyadda qabiilkiisi wey waa reerkoodii wax laynaya ee ciidankii qaranka laynaya maleeshiyaad haba islaayaan qabaa'il waa la isku len jiray weligeedba. ciidanka loo soo dirayana ciidan federation ahoo soomaaliya o dhan u dhexeeyo ayaa weligeedba inti loo diro iyadoo weliba walaalka aad aragta meeshuu yaallo ayaa ninka askariga haddana awaamirta dowladda uu fulin jiray oo weligeed bay ahaan jirtay. waxay ku dhaqaaqeen abgaal ayaa wax fool xuna oo aad iyo aad looga yaqyaqsado ah waana madaxweynihii haddana beeshoodii iyagoo xukunka fadhiya oo madaxweynihii ah ayay noocaas foosha xun u dhaqmayaan. maxaa la dhihi karaa marka maxaa la dhihi karaa waa ayaan daro inteeda leeg. ceeb baana maanta haysato xasan sheekh maxamuud ceeb weyn baa haysata muuqaalkeena horena waa idinku sheega waxaana idhi saamayn adag bay ku yeelan doontaa ciidanka dhexdiisay ku yeelan doontaa baana idhi. isla durba maxaa soo baxay dhalinyaradii oo gadooday oo iskaga soo baxay furimaha dagaalka soo maartaan meelo badan baa laga soo bixi doonaa haddaysan dowladdu tallaabo adag intay qaado nimankaas jirida ee wadada ku jirta burcadda ee magaca qabaa'il ku adeeganaysa aan madaxooda la keenin oo aan la dhihin xawaadlo waa kuwan ama iyagoo noolee laysta ama waxa weeye waa kuwan madaxoode waan soo laynay haddaan la dhihin saamayn badan bay ciidanka soomaaliyeed ku yeelan doontaa waanaad arki doontaanoo kow weli fara kama qodna dowladdii federaalka ilaa iyo hadda tallaabo maysa qaadin. xasan iyo shuute ninka la yidhahdo guddoomiyaha darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida war baa u yaalla labadoodabana hal heer bay kasoo jeedaan waa heyrta wax laysay bay kasoo jeedaane war baa u yaalla oo looga fadhiyaa. reer hiiraanna war baa iyagana u yaalla ku taamila qaata haddaad ciidan leedihiin haddaad mas-uuliin leedihiin haddaad hirshabeelle ka tirsanaydeen ood maamul wada lahaydeen haddaad waxa weye hiiraan idinku tihiin haddaad waxaad tihiin ba ahaada war baa idinkana inii yaalla. waad aragtaan meel laynagu daynaya ma jiro. maalin dhowna waxaad arki doontaan muqdisho laynagu dhexlaynayo idinkana talaa inii taalla talo yuusuf dabageed talaa u taalla oo looga fadhiyaa oo xawaad looga fadhiyaa. waynu eegi doonaa dhacdadaasi waa dhacdo argagax badan weli ciidanka xoogga soomaaliyeed ee soo gadooday wadahadallaha ku socda waxaana rajaynaynaa in heshiis iyo isafgarad laga gaari doono ayaan rajaynaynaa. dableydaasi iyo dambiilayaashaasi dhagarqabayaasha ay wiilasha soomaaliyeed ee 7 askariya halka meel ku gowracayna waxaan rajaynaynaa in lasoo qaban doono oo sharciga la marsiin doono ayaan rajaynaynaa insha allahu tacala wixii kasoo kordha waynu eegi doonaa.